Imaam Axmed bin Xambal ayaa wiilkiisa oo guursanaya kula dardaarmay sidaan: wiilkaygiiyow, gurigaaga wax farxad ah lagama helayo haddii aan laga helin 10 waxyaabood, kuwaasoo aad u samaynayso xaaskaaga. Waa kuwan arrimaha ee ilaali oo ku dadaal. Midda koowaad iyo midda labaad, dumarku waxay jecel yihiin koolkoolinta iyo in jacaylka loo muujiyo, ee xaaskaada ha kala baqiilin arrinkaas. Ogowse, haddii aad ka baqiisho, dhexdiina waxaad dhigaysaa derbi nacayb iyo jacayl la'aan ah. Midda saddexaad, dumarka ma jeclo ninka adag ee qallafsan. Waxay adeegsadaan oo ay ka helaan ninka u jilcan. Adigana sifo walba booskeeda dhig, sidaasay ku jirtaa nabadgelyada jacaylka. Midda afaraad, dumarku waxay jecel yihiin inay nimankooda isku jeclaysiiyaan wuxuu ninkooda ku jeclaanayo. Midda shanaad, guriga waa boqortooyada dumarka, iyadaa ka taliso oo maamulkiisa hayso. Iska ilaali inaad dumiso boqortooyadaas aad ku nooshahay, iskana ilaali inaad ku qabsato maamulkeeda. Ogowse, haddii aad ku qabsato maamulkeeda inay kaa difaacanayso, sababtoo ah boqorrada waxay aad u necab yihiin kursigooda in lagu qabsado. Midda lixaad, haweentu waxay jeceshahay ninkeeda inay kasbato iyadoon waayin qoyskeeda. Iska ilaali naftaada iyo qoyskeeda inaad saarto hal miisaan. Tan toddobaad, haweenta waxaa laga abuuray feer qalloocan. Taasina waa sirta quruxdeeda iyo sirta soo jiidashadeeda. Ceebna uma ahan, oo sunniyaha quruxdooda waa qallooca ay qalloocan yihiin. Haddii ay qalad gasho, qaladkeeda si adag ha ugu qaban, adigoo markaas rabo inaad toosiso qalloocaas, sidaasna aad ku jabiso. Jabkuna wuxuu noqonayaa furiin. Qaladkeedana ha uga tagin si uusan ugu sii badan, si aysan ugu malaynin nafteeda inay saxan tahay, adigana aysan kuu jixin-jixinba. Midda siddeedaad, dumarka waxaa dabeecad u ah inay inkiraan oo ay dafiraan wanaagga loo sameeyo. Haddii mid ka mid ah iyaga aad wanaajiso 1 sano, kadibna aad xumaato hal mar, waxay ku dhahaysaa, weligayba wanaag kaama arkin. Dabeecaddaasna yaysan kugu qasbin inaad nacdo iyada oo aad ka cararto. Haddii dabeecaddaas aad nacdo, waxaad ku raali noqonaysaa mid kale. Midda sagaalaad, dumarka waxaa soo maro xaalado tabardarri iyo daal nafsi ah ay dareemaan, heer Allah subxaanahu wa tacaala uu ka riday wax badan oo waajibaad ah. Xilliyadaasna waa inaad garabkeeda noqoto, oo sida Alle uga dhaafay waajibaadkiisa aad adigana uga dhaaftaa dalabyada iyo amarada badan. Midda tobanaad, ogow, haweenta agtaada waxay ku tahay sida maxbuus. U naxariiso, waxay kuu noqonaysaa raaxo midda ugu wanaagsan iyo lamaane midda ugu wanaagsan.